waxaan rabaa saakay abaaro sagaalkii subaxnimo xilli ku beegan ayaa cadowga ugus ummadda Soomaaliyeed waxay weerar ku soo qaadeen ayagoo wata laba baawur oo walxaha qarxa laga soo buuxiyay agagaarka garoonka diyaaradaha gaarigaas runtii meel laamiga garoonka dhinaciisa ayaa lagu baakimay kadibna wuu qarxay qaraxaas waxaa ka dhashay dhimasho waxaa ka dhashay dhaawac ilaa hadda inta aan hayno 13 qofna waa ku dhimatay ilaa 5 qofna way ku dhaawacantay marka oo gaariga kaleeto oo asaguna gaarigaas daba socday ciidanka hay'adda nabad sugidda oo runtii aad u fooljignaa ayaa ka hortagay waxayna ku fashiliyeen goobta loo yaqaano dalcadda dabka oo checkpointiga oo yaala ay baawurkaas ay ku fashiliyeen